عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالقة وإذن سلامي وحاydin leeyahay maalin wanaagsan subax wanaagsan galab wanaagsan intaba waxaan rabaa inaan ka hadlo Fountain of Life waxtarkeeda. Fountain of Life aad ayay u waxtar badan tahay run ahaantii as a human being ahaan waxa u baahannahay inaan dhisno immune systemkeena aan kor u qaadno saa iskaga difaacno ay sickness oo markaasna soo wajahaya insha Allah. marka ciwaankan aad fiirisid waxaa halka ku qoran just the one protected the one, it is the one for real, it is the one Fountain of Life. marka halka u rogtid waxaa arkaysaa in aadan cuni karin maaragtaya intaasoo qudaar iyo intaasoo oo vegetarian waxay u dhigantaa 10 drop intaasoo qudaar ah intaasoo vegetarian ay u dhigantaa. su'aasha meesha taal waxa weeye ma qaadan kartaa maalin walba qudaartaas iyo vegetariankaas oo intaasoo number ah waa may ma qaadan kartid. marka maxaa ku sahlan inaad samaysid, waxaa ku sahlan inaad 10 drop Fountain of Life qaadid saad aad maaragtaya aad u heshid intaasoo oo maaragta fruit and vegetarian jirka uu u helo. marka waxa kaloo jira aan rabaa inaan maanta halkan aan ku sheego inay horta maaragtaya ka saacidayso xanuunyada wajaha maskaxda iyo wadnaha iyo maaragtaya timaha maskaxda waxa ku dhaco madaxa ku dhaco maqaarka madaxa maxaa keena in timaha daataan, maxaa keena inuu qofka bidaar yeesho, waxaa keena nafaqo daro iyo maaragtay daryeel la'aan intaba way dhacdaa. marka diabetic-gana way sintaa waxaan oo dhan hore ugu soo sheekeynay. waxaan hadda aan ku soo noqnoqsanaya ma ahan haddii aad faahfaahin buuxda u baahan tihiin waxaad dib ugu noqon kartaan fiidiyoyaalka oo Facebook la soo dhigay ama YouTube-ka insha Allah. waxaa kaloo jira in kansarka breast cancer-ka ku dhaco iyo maaragtay prostate cancer-ka halkan oo ku jeedaan ku dhaco iyo inflammation-ka jirka ku dhaco kale jirka يعني فاتك ويك ديسارتا waxaa kaloo jira in lagu caatoobo gaaska way u fiican tahay waxyaabo badan ayay dadka u tartaa waxtarkeedina waa arki doontaan. waxaa idin soo gelinaa clip oo gabar Soomaali iyo maamo Soomaali ka hadlayso siday wax ugu tartay Fountain of Life insha Allah gadaalaan ka soo raacin doona. waxaa kaloo jiro in waayahan lagu murmay in afka laga qaadan karo iyo inaan laga qaadan karin. waa laga qaadan karaa Fountain of Life halkaas aynu ku caddahay afka waa laga qaadan karaa. qofkii aqris yaqaano wuu aqrisi karaa tunka carabka hoostiisa lagu shubtaa waana laga qaataa afka kiilooyinna waa loo qaataa. bahasha iska cab xataa ma ahan waa bahal natural horta sideediba daawo ma ahane waa dhir natural maaragtay hada qofka waxyaabaha naturalkana dhibaato uma keeno unless uu jirkiisa uu diidaneen. marka korkan waa laga marsan karaa saa u jeedaan xasaasiyada dadka qaba iyo wixii la mid ah wajiga kale iyo waxaasoo dhan korka ka marsan kartaa. saliidan waa ka timaha waa lagu darsadaa timaha way soo saartaa timaha waxaa gooysaa hadda ay taba idinkugu soo sheegay maqaarka madaxa oo ku dhaco disease ku dhaco ayaa keeno. marka cambaarta oo kale iyo adee madax kaaga dhacaan timaha way ka go'ayaan of course. marka subagana beerka way ka saartaa saa hore u soo sheegay. xayawaankana looma ogola in la siiyo sokortana way sintaa maadaama beerkaba way sifaysaa. qofka uurka lehna looma ogola iyo ilmaha. we do not recommend Fountain of Life for the children under 12 years of age. halkaasay ku caddahay ilmahana ha siinina. maxaa la dhahayaa qof uur lehna yaan la siinin looma ogola unless
uu dhakhtarkiisii wixii la xiriiro. waxay kaloo hayaan daawooyin wajiga iyo wax la marsan karo, day cream, night cream iyo wixii la mid ah. insha Allah qofkii rabo inuu maaragtay oo asal business ahaan u isticmaalo insha Allah. halkaana waxaa ku qoran testimonia. buuggan oo jeedin way raacsan tahay daawada باكيتكي كي جرتا qofkii rabo inuu fahmo horta wax walba aad soo gadanaysid, wax walba aad maaragtay aad isleedahay alaylahay inuu kugu haboon yahay, waxaa dib loogu noqdaa yani wuxuu taraay iyo meeshii laga soo saaray iyo anfacadiisi kuliba. marka waxaaneeto wax qarsoon ma aha, anfacadiisii meeshii laga soo saaray wax walbaba banaanka ay yaaliin, way cad yihiin. waa wax natural ah, ma ahan daawo mar walbaba. taasaa idin leeyahay yani ha ka sugina inay maaragtay sida kaniinka madaxa oo kale intaad laqdido hal mar bam maskaxda kuu fiicnaato aad madaxii aad caadi noqotid. marka waxay qaadanayaa xoogaa waqti u qaadanayaa. haddaa dhalada salkeeda fiirisid waxaa ku qoran 3 maalmood yaa idin dhihinay 3 bilood 90 days guarantee ku qoran. maxay ugu qoran tahay 90 days guarantee? maxaa loogu qori waaye 1 day guarantee? because dhir waaye waxaan ma ahan wax kale. marka wixii markay dhir yihiin waqtiyuu qaadanayaa in nafcigiisi iyo waxtarkiisi la helo. waxaan kaloo walaalaha Soomaalida ah aan ku buraarujinayaa aqriska ha lagu dadaalo, ha la iska aqriyo wax walba ha la iska aqriyo. buuggan ma ahe mid yarosaan oo kale ayaa raacsan baakeedyada. qofka markuu helo dhalada uu furto ama waxa baakeedka korkiisa ku qoran xataa dee hadduu aqriyo wuu fahmi karaa dhankii loo wado. dee qofka gadaayana haddii maaragtay uu si fiican uu qofkii kale ugu sharxana wuu fahmi karaa yani waxa loo isticmaalayo. waxaase huwa qofna ma aan gadanin usoo ogeen waxaan yani daawadan uu isticmaalayo. marka waxaa kaloo jirto maalmaha ka mid ah dowladii hore Siyaad Barre Allah yarxamo ayaa waxaa jiray in mujada 90 days guarantee ku qoran. maxaa loogu qori waay 1 day or 2 day guarantee? because ma ahan daawo madax ma ahan oo hal maalin aad ku fiicnaanaysid. that's why loogu qori waay you have to isticmaashid more than 1 dhalo. markaas waxtarkeedu waa arkaysaa insha Allah. waagiisi dowladii Siyaad Barre ayaa waxaa jiray in loo yeeray uu dhahay lagu yeeray nin hebel. ninkii markii loo yeeriyuu soo galay ofiskii ayaa Maxamed Siyaad Barre Allah yarxamo wuxuu qoray warqadii u dhiibay. markaas wuxuu dhahay station hebel gay gacantaadna ku gay. wuu soo qaaday yiri warqadii wuu iska soo baxay. ninkii stationkii uu tagay. stationkii markuu tagay warqadii uu siiyay askartii waxay markay fiiriyaan waxay dhaheen nin hebel hal xira la leeyahay ninkan waa adiga bal xaro wala xabsi ku xaro. marka dhibaatadaas ay keenay wax aqris la'aanta. dee qofku waa trust gareyn of course oo wax ku sheegay, laakiinse ma ahan inaa 100% isku dhiibtid. ahafta inaa aan fiiriyo aqriyo oo maaragtaa wixii uu iga daadago inuu ka daadago waay adoona fiirfiirinin de waxa gadanin. marka naftaada iyo nafta kalaba markaasayta waa kala badbaadaysiin labadiinaba insha Allah. waxaan gadaal ka soo raacinayaa clip oo islaan maaragtay maamo ay aad wax ugu tartay ka hadlayso. waxaa kaloo i cajibiyay leedahay haddaan awoodo because xanuun badan dulhaayay iyo dhibaato ka dulqaaday, hurday siisay, nasasho siisay, stresska ka dulqaaday, waxyaabo badan oo nafciga ka heshay. marka waxay leedahay haddii aan awoodo maaragtay inaan Soomaaliya oo dhan aan u gado daawadan waa u gadi lahaa waana siin lahaa. marka intaas ayaan wallaahi ana wax la siisan karin because waxay jeceshahay yani
wanaaga iyo caafimaadka iyada heshay ee walaalkeeda la jeceshahay. marka adigana waxa weeye in walaalkaaga la jeclaatid, ma ahan qofka kale walaalkaaga aad yani daawad xanuun ku qaad qof kale walaalkaaga ah inaad ka cararsiisid oo u baahan oo maaragtay caafimaadka u baahan. qof walbana bini'aadanka isku jir ma ahan, isku system ma ahan, yani ilaahay wuu kala gadiyay. marka insha Allah waxaa rajaynayaa maaragtay inaa fahantaan oo wax ku qaadataan. kole wax walba wax cad meelahan ku cad yihiin insha Allah. inkastoo wadamo kala duwan oo system kala duwan leh aan kala joogno, dadka UK ku nool iyo dadka Norway ku nool iyo dadka Sweden ku nool iyo dadka Mareykan ku nool iyo dadka Canada ku noolba systemkoodu kala duwan yahay as well sida bini'aadanka jirkooda systemkiisu kala duwan yihiin. marka systemkana hala raaco oo wadanka insha Allah, iyo in wixii la fahmo la aqriyo insha Allah. daawada waa hal sida halkaaba ku qoran tahay, the one way, the one, 2 maahan, 3 maahan, 4 maahan, it is the one real. marka waana cabi kartaa, waana marsan kartaa wadan walbo joogtid, laakiin systemkaaga raac, systemkaaga ha ka bixin insha Allah. haatan waxay inagu xijinayaa kaliibkii aan rabay inaa idin la wadaago la socod wacan.